inta badan waxaa muddooyinkani ugu dambeeyey guud ahaanba hadheeyey khilaaf siyaasadeed asxaabta siyaasadda ee dalka Somaliland waxaana si weyn ugu jahawareeray shacabka kala duwan. haddaba xisbiga wadani oo kamid ah asxaabta siyaasadda ee Somaliland ayaa waxaan ku eegi doonaa khilaafkii ka bilaabmay shirweynaha ee haatan lagu kala qaybsamay laguna kala tagay xisbigaasi iyagoo qaar kamid ah garabka uu hogaamiyo Axmed Muumin Seed ay sheegeen inay dacwad la galayaan xisbiga wadani una gudbiyeen guddiga diiwaangelinta. haddaba muxuu salka ku hayaa inta badan khilaafka asxaabta siyaasadda ee soo noqnoqda guud ahaanba xisbiyada qaranka waxay leeyihiin shuruuc sidoo kalena dalkani Somaliland ayaa waxa uu leeyahay dastuur iyo shuruuc lagu dhaqayo nidaamka asxaabta waxaas oo dhan waxa hal bacaad lagu lisay ka dhigtay inta badan shakhsiyaad amba si gaar ah isugu xidhan oo soo jeediya una arrimiya guud ahaanba asxaabta siyaasadda iyadoo ay shakhsiyaadkaasi kala duwan ee xisbiga wadani uu leeyahay loola baxay mustambeedka xisbiga wadani. haddaba mustambeedkaasi iyo maamulkiisa ayaanu ku eegi doonaa warbixintani idin diyaariyay telefishinka Space Channel. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ah musharaxa jagada madaxweyne ee xisbiga wadani, Maxamed Cali Cabdi musharaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee xisbiga wadani, سعيد سلو محمد oo kamid ah isaguna xisbiga wadani, maxamed nuur caraala duur oo kamid ah xisbiga wadani, dr maxamed cisbaan fadal oo kamid ah xisbigaasi, xuseen daamur oo kamid ah xisbiga wadani, mudane cismaan afgaab oo isaguna ah xisbiga wadani amba xogayaha golaha dhexe, marwo faadumo siciid, marwo faadumo suudi, xirsi cali xaaji xasan, cabdiqaadir jirde iyo waliba xubno kale oo tiro badan. inta badan mas'uuliyiinta noocaasi oo ah iskooxaysta ayaa waxay yihiin kooxaha ay ka soo fulaan mabaadi'da lagu dhaqo xisbiga wadani cidii ay garan waayaan amba aanay isku raacsanayna dabadda uga tuura xisbiga amba si bilaa xorriyada la'aanteeda ugula dhaqma inta badan mas'uuliyiinta xisbiga wadani oo isagoo ah xisbi la aasaasay dhowaan xisbiga ugu muddada yar asxaabta siyaasadda kana dhashay dib u furitaankii asxaabta siyaasadda iyo ururada ee uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro inkasta oo uu saameyn badan ku leeyahay guud ahaanba Somaliland haddana nidaamkiisa maamul amba xeer hoosaadiyadiisa amba markaad eegto dhinaca nidaamka maamulka sidoo kalena aanad tartami karin doorashada amba nidaam uu wax ku bedeli karo ilaa iyo haatan aan soo bandhigin marka laga reebo buugaag iyo waliba aaraahda fikirada iyo sidoo kale dhaleecaynta ay u jeediyaan xukuumadda laakiin balse nidaamkiisa hoose waa mid aan guud ahaanba laga dheehan karin wax ku oola oo lagu dooran karo amba ay ku bedeli karaan xukuumadda ka soo jeeda xisbiga kulmiye. waa maxamed cali xaashi telefishinka Space Channel magaalada Hargeysa.